kulan wanaagsan daawadayaasheenna aanu jecelnahay kuna soo dhawaada warbixin kale oo xiiso leh oo aynu ku sharaxayno in sarcaadyada ugu cajiibsan ee aad loo daawaday. warbixintan waxaanu ku soo qaadanaynaa sharaxaadda 5 xeeladood oo ku saabsan in sarcaadyo kala duwan oo xiiso leh. in sarcaadyadan ayaa wax badan la daawaday iyada oo dhowr jeerna lagu soo bandhigay masraxyada ugu waaweyn ee Yurub, Mareykanka iyo Kanada. xitaa qaarkood ayaa wadooyinka ay dadku ku badan yihiin ee magaalooyinka waaweyn ah lagu soo bandhigay. fadlan inta aanan ku bilaabin waxaanu ka codsanaynaa in aad muuqaalka like saartid si aan ugu dhiirano in aanu warbixino kale soo diyaarino. xeeladaha aanu idin sharaxi doono waxaa kamid ah in sarcaad ku saabsan qoor ama luqun kaligeed soo dhacaysa oo macal madaxa inta la qabto dib loo celinayo. midi qofka gacantiisa lagu jeexayo hadda ay gacantu wali caafimaad qabto oo aan dhaawac soo gaarin. biyo koob ku jira inta koobka afkiisa hoos la aadiyo oo aysan biyuhu daadanayn iyo qodobo kale. in sarcaadka koowaad madax kaligiis iska soo dhacaya haddana qofku uu nool yahay oo uu soconayo. in sarcaadyaha ayaa inta uu masraxa soo fuulo dadweynaha iyo guddiga garsoorka hortooda hal mar tusaya madaxiisa oo soo dhacay. qof kasta naxdin iyo ama kaag ayaa isu raacaya. wax arinta lagu tilmaamana waa la garan weynayaa. waxaana sarcaad ka weyne tolow ma madax gacanta lagu waday ayuu ahaa. laakiin ninkii uu madaxiisu soo dhacay inta uu dib madaxa booskiisa ugu celiyo ayuu dheelayaa oo uu faraxsan yahay. sidee waxaana loo sameeyay? waa xeelad cajiib ah laakiin aan ku sharaxo. sirta ay xeeladani ku tiirsan tahay waa jaakada uu xiran yahay in sarcaadyuhu. sidee bay ugu tiirsan tahay? in sarcaadyuhu waxa uu soo qaatay 2 qori oo adag ama caag. kadib inta uu isku dhajiyay ayuu qoorta gashtay isaga oo garbaha ka ritay. kadibna waxa uu ku dul gashtay jaakada uu ku labisan yahay. kadib waxa uu sameynayaa in uu labadii qori inta qabto oo uu kor u riixo oo ay jaakadiina xoogaa kor u kacdo ayuu qoortiisa ama luquntiisana hoos u soo raaricinayaa. kadibna waxa uu u ekaanayaa in uu madaxiisa soo riday. si aad u sii xaqiijisid in jaakada uu ku hoos qariyay 2 qori ama caag oo uu jaakada ku tiiriyay fiiri halkan dhabarkiisa ah marka uu kaamirada ka sii jeesto. in sarcaadka labaad midi gacanta lagu jarayo oo la dhexgelinayo kadibna ay gacantu fayowdahay wax dhaawac ahna aysan soo gaarin. in sarcaadyaha ayaa soo qabsanaya midi af leh oo si fiican u afaysan. gacantiisa bidixda ayuu saarayaa wuu ku riixayaa kadibna inta ay mididii gacanta dhex gasho ayuu si fiican ugu rugayaa. sidaas oo ay tahayna wax dhaawac ah gacanta ma soo gaarayo. in sarcaadyuhuna wax xanuun ah ma dareemayo. sidee ku dhacday arintan? way sahlan tahay xeeladan. in sarcaadyuhu waxa uu soo qaatay midi in sarcaadka uu u diyaarsaday. mididu sida ay u samaysan tahay waa mid daabkeeda ku xaroon karta oo ma ahan mid adag oo aan dhaqaaqayn. yacni qaybta daabka inta lagu riixo ayay qarsoomaysaa. sidaas oo ay tahayna qayb hoos ku xareysan ayaa qaab goobo u samaysan oo haddii gacanta la dhex geliyo loo malaynayaa in ay gacantii jartay oo ay dhex gashay oo halkaasna uu dhaawac ka dhashay. laakiin arinku sidaas ma aha. haddii kaamirada dhanka kale laga eego si fiican ayaa loo arki karaa sida ay mididu u qaabaysan tahay. in sarcaadka saddexaad holac shumac ka shidan oo inta holaca gacanta lagu soo qaado kadibna shumaca dib loogu soo celinayo. in sarcaadyu waxa uu soo qabsanayaa shumac daaran kadib inta uu holaca ku aadiyo suulka gacanta midig ayuu holacii qaadanayaa oo uu suulka ka shidmayaa
shumacana uu ka damayaa. dhowr jeer ayuu xeeladaasi ku celcelinayaa, laakiin sidee loo sameeyey? waa xeelad fudud runtii. indhasarcaadiyuhu waxa uu wataa suul macmal ah oo balaastig ka samaysan. balaastigga ama cinjirka waxa ugu dhegan dun yar oo midda shumaca ah oo holcaysa haddii dab la taabsiiyo. inta uu holaca ku shido dunta yar ee suulka balaastigga ugu dhegan ayuu si qarsoodi ahna u daminayaa holacii uu ku shiday oo shumaca uu ka daarnaa. marka uu suulka holaca ka soo qaadayana wuxuu shidayaa midka shumaca, kan suulkana waa uu daminayaa. waa intaas oo keliya. indhasarcaadka afraad, gasac cabitaan oo keligiis haabaya. indhasarcaadyaha ayaa soo qabsanaya gasac uu cabitaanka ka dhammaaday, kadib kor ayuu u qaadayaa. waxaa xiga in farihii uu gasaca ku hayay uu ka sii daayay, laakiin gasacii ma dhicin oo weli hawada ayuu haabayaa. sidee loo sameeyey xeeladan? xeelada indhasarcaadkani way sahlan tahay, waxayna ku tiirsan tahay suulka ninka indhasarcaadyaha ah. marka hore qasacu waa uu daloolaa, kadibna daloolka qasaca ayuu dhex geliyey suulka. suulkuna waxaa naga qarinaya gasaca laftigiisa. sidaas darteed suulka ayuu marba dhan u dhaqaajinayaa, isaga oo jilliin yarna ku daraya oo ka dhigaya in gasacu uu keligiisa haabayo oo aan la haynin. sidoo kale xeeladani waxaa loo adeegsan karaa suul cinjir ka samaysan iyo caag yar oo balaastig ah oo lagu dhejinayo sidan oo kale. indhasarcaadka shanaad, biyo koob ku jira inta koobka afkiisa hoos la aadiyo oo aysan biyuhu daadanayn. indhasarcaadyaha ayaa soo qabsanaya koob dhala ka samaysan oo faaruq ah, kadibna baaldi ay ku jiraan biyo ayuu ku soo darayaa. kartoon ayuu soo qabsanayaa, intuu koobkii biyuhu ku jiray uu ku gembiyo ayuu kartoonkii ka qaadayaa, laakiin koobkii ay biyuhu ku jireen weli afkiisu hoos ayuu jiraa, mana daadanayo. waa indhasarcaad cajiib ah, laakiin markasta niyadda ku hay in waxani ay xeelado iyo farsamo caqli ku dhisan ay yihiin oo aysan wax intaas dhaafisan ahayn. sida loo sameeyeyna waa qaabkan fudud ee soo socda. kartoonka koobka lagu daboolay kadibna laga qaaday waxaa saarnaa dabool caag ka samaysan oo laakiin sida dhalada biyaha laga dhex arki kara ah. kadib daboolkii ayaa koobka lagula qabtay oo lagu dhejiyey. marka koobka afkiisa hoos la aadiyana biyihii sidaas ay ku ceshmayaan oo aysan ku soo daadanayn. waa intaas oo keliya. waxaan rajeynayaa in aad ka heshay warbixintan, annaga oo warbixino kale oo xiiso lehna soo gelin doona insha Allah. adiga oo aragtidaada nala wadaagaya qodobkee kuugu xiiso badnaa oo aad ka heshay xeeladaha aan warbixintan ku soo qaadanay. haddii aadan weli like saarin, mar kale ayaanu kaa codsanaynaa in aad muuqaalka like saartid adiga oo mahadsan. tan iyo inta aynu warbixin kale oo xiiso leh ku wada kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.